waxaas ku soo dhawaada daawadayaal iyo dhegaystayaal dulqaad media show barnaamijka ciyaaraha oo alaaba ka dhagaysataan. waxaan ku soo qaadan doonaa ciyaaraha Euro 2022 isku aadka 16aad. waxaa si rasmi ah u soo dhamaystirmay 16kii kooxood ee ku soo baxay wareegga Euro 2020 iyadoo isku aadka adag tahay. kooxaha isku soo baxay xulka qaranka Belgium-ka ayaa ku beegan Portugal, halka England ay ku wajahayeen Jarmalka. wareegga 16 tartanka Euro 2020 ayaa bilaaban doona maalinta Sabtida ay taariikhda ku beegan tahay 26 Juun oo berita ah. sida ay iskugu aadeen xulalka Belgium-ka ayaa ku wajahan Portugal, Italia ayaa wajahaya Austria, France ayaa fooda daraya Switzerland, Croatia ayaa xabadka saaranaya Spain, England ayaa Jarmalka haldamaya, Netherlands iyo Greek Republic ayaa madaxa isdaraya, Wales iyo Denmark ayaa ciyaaraya, Sweden iyo Ukraine ayaa fooda isdaraya. waxaana la filayaa kooxaha 8 kooxood ee ka soo bixi doonta wareeggan 16 iyadoo la saalinaya in dalka Jarmalka iyo dalka France ama England ay koobka u soo bixi doonaan. waa anigoo wariya Cabdinaasir Maxamuud Xaaji Axmed Cabdinaasir Qujufa. halka ka daawanaysa waa dulqaad media show, waa barnaamijka ciyaaraha. intaan ku kulmi doona barnaamij lamida barnaamijkan sidaasi nabadgelyo meel walba joogtaan waqti walba idin tahay.